dhammaan shacabweynaha reer Puntland gaar ahaan reer Boosaasood waxaan u sheegayaa magaalada Boosaasood in ay dib ka wadaan iyo dagaal raba inay ka abuuraan koox amardiid ah oo diiday inay xilka wareejiso oo ciidamo ah kooxdaas oo hadda sida ay sheegteen inay ka mid yihiin ciidamada gorgor waxay qas ka wadaan magaalada iyo fawdo ilaa shalay waxay bilaabeen inay la dhacaan dadka xabado maanta waxay bilaabeen inay hubiya la dhacaan xaafadihii dad masaakiin oo waxaan galabsanna ay waxyeelayaan iyagoo ujeedadoodu ay tahay inay magaalada ka abuuraan carqalad dagaal iyo barakac iyo rabshado iyagoo ugu gabanaya in ay iyagoo ugu gabanaya amar diidada ay sameeyeen dowladda Puntland waxay muddo bil ah u dulqaadanaysay oo waan ka waday amar diidada ay sameeyeen kooxdaas waxaan u sheegaynaa shacabka reer Boosaasood dowladdu wax badan bay dulqaadatay wax badan bay waan iyo nabad hawshaas ka gashay waxa bilaabay xabad inay dadka xabadayaan hubiya la dhacaan kooxdii amar diidka ahaa kooxda amar diidka ah waxaan u sheegaynaa bulshada reer Boosaasood in dowladdu ay talaabo ka qaadayso waajibaadkoodana ay helayaan haddii aysan ka waantoobin dhibta ay ka wadaan magaalada Boosaasood waxaanu shacabka reer Boosaasood ugu baaqaynaa inay dowladooda la shaqeeyaan dowladdu inaysan dib wadan inay muddo badan ka leexleexanaysay inuu magaalada Boosaasood dhib ka dhacdo ayna hadda iyagu khasbayaan inay bilaabaan rabshado ka abuurma magaalada Boosaasood kooxda amardiidka ee sheeganaysa ciidamada gorgor waa koox gacmo badan ay ku jiraan oo lagu adeeganayo loona adeegsanayo carqaladda iyo rabshadka abuurka deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso waxaan u sheegaynaa shacabweynaha reer Boosaasood in dowladdu ay mar walba talaabada ay qaadayso ay tahay oo ay shacabka ugu turayso ayna mar walba awaamiirta iyo shuruucda u yaala dowladda Puntland ay fulinayso dekreeto iyo bedelaad iyo xilka qaadis iyo xil magacawd la diidi karo oo qof xil laga qaaday oo diidi kara ma jiro waa sifo sharciya weeye amar diidada ay sameeyeen bay waxay ku abuureen buuq iyo rabshado buuqa iyo rabshadahaas waxay ku talagaleen inay dadka barakiciyaan shacabka laayaan dhibaateeyaan shacabku dowladooda ha garab istaageen hana la shaqeeyeen dowladuna uma dulqaadanayso koox meel gashay oo gacmo shisheeye ku jiraan oo shacabka dhibaateynaya inay meeshaas sii joogaan uma dulqaadanayso meelaha ay joogaan baa lagu tagayaa hal guri bay ku jiraan halka guri bay ka dagaalamayaan hoobayaal meelba ku rideen dhibaatada shacabka ay u geystaan waxa ka mas'uul ah kooxda amardiidka oo uu hormoodka u yahay Maxamuud Cusmaan Diyaano waxaan u sheegaynaa shacabka dhibta cidda wada inay tahay kooxaha la soo abaabulay amardiidka ah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga digaynaa inay ka waantoobaan waxa ay sameynayaan oo iyo rabshadaha ay wadaan iyo dagaalka ay ka horinayaan magaalada Boosaasood haddii ay si degdeg uga waantoobi waayaan dowladdu waxay qaadaysaa talaabo sharci qaadaysaa dowladdu muddo dul qaadanaysay hadda muddo bilabay maraysaa intii loo dul qaadanayay waa waanta la sugayay wax walba oo lagu dhameeyo oo waan noqoto oo sharciyada la waafajiyona iyaga ayaa diidayay iyaga oo leh dana kale iyo afkaar kale oo ummad kale u adeegaya magaalada Boosaasood ama dowladda Puntland uma dul qaadanayso cid gacmo shisheeye oo ka baxsan Puntland u adeegaya talaabo sharci ka qaadi doonta